مسافة gaaraysa ku dhawaad 100 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Berbera wafti ka socota kastamka magaalada Berbera iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha iyo wasaaradda horumarinta kalluumaysiga oo socdaal ku tagay deegaankaasi ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xafiiskan kastamka uu ku shaqeyn doono waxa weeye aynu soconaa in doontu waxay sida mitirkii caadiga ahaa la saaro la miisaamo marka la ogaado mitirkii iyo dhiibkii rasmiga ahaa cashuurtii rasmiga ahayd ku dhacaysa laga qaado wixii aqoona ee lagu kordhinayo shaqaalaha wayno joogan qoladii seminaarka inoo fariis waana barayna odayaasha waxaan marti uga nahay inay siday haraba gacanta ugu hayaan meesha gacanta ugu hayaan kadib maanta waxaan isugu nimi furitaanka xafiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda gaar ahaan kastamka Berbera uu si rasmi ah ugu yeelan doono degmadan Ceeldaraad imika ka hor shaqo way ka socotay halkan laakiin si toos ah xafiisna ugama furnayn dhammaan wasaaradda maaliyaddu wixii ay adeegyo u baahnaydna laga mehelin laakiin laga bilaabo maanta kastamka Ceeldaraad uu furan yahay isagoo ay u dhameystiran yihiin wixii uu baahnaa imkaaniyad xafiisku hadday tahay xafiiskii hadday tahay shaqaalihii u shaqeynaya cashuurta qabanayay dhammaantood waa furan hadday tahay isgaarsiintii maanta way dhameystiran yihiin hadday tahay gaadiidkii iyo baabuurtii maanta reer Ceeldaraad waxaan u sheegaynaa waxay ku xidhan tahay horumarkiinu iyo isbeddelka magaaladan iyo MCH ka la doonayo iyo caafimaadka la doonayo haddii aan cashuur la helin dawladdu ay wax ku qabato oo ay ku dhisto MCH-kii oo ay ku dhisto wixii ay u baahnayd degmadani waa cashuurta waxa uu ku xidhay horumarkiina iyo wax soo saarkiinu iyo magaaleynta halkaniba iyo wadooyinka aynu ka cabanayno waa runaa si ay deegaanku sheegeen waxa ugu daranayaan meesha ku soo aragnay waxa kow ka wado xumo laakiin wado xumada ka bixi mayno ilaa aynu helno cashuur nagu filan oo aynu wadada ku dhisano haddaba waxaan idinku dardaarmayaa maanta sida aad u taageertaan xafiiska wasaaradda horumarinta maaliyaddu halka ka furtay iyo cashuur ururinta aad bartaa maanta ku taageertaan ayaa kow ka noqon doonta wax qabadka aad sugaysaan ee leh caafimaadka ee leh wadooyinka marba sida aad uga shaqaysaan buu noqon doonaa laga bilaabo maanta wixii kale ay ka cabanayeen ee sida xoolahaas tagana dhammaantood waa isku wada deeynaa adeeg kasta oo looga baahan yahay cashuur in bartan laga wada helo inkastoo mabda'a imika halkan aanu furnay ahayd kalluumaysiga laakiin wixii wasaaradda horumarinta maaliyadda looga baahan yahay cashuuraad waa ka wada hirgelinaa wixii kale naga dhiman laakiin xafiisku waa shaqeynaya shaqaaluhu waa idin dhameystiran yihiin imkaaniyaadku waa idin dhameystiran yihiin dhammaan wixii looga baahnaa wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa ku dhameystirantahay deegaankana waxaan kula dardaarmayaa sidii horeba u taageeri jireen waa run odayaashu markii hore halkan joogay iyagaa nagala qayb qaadanaya cashuur ururinta iyagaa lacagta soo qaadi jiray iyagaanu kala shaqayn jirnay laakiin maanta wasaaraddii maaliyaddu awood buuxda u yeelatay hawshaa inaanu idinka furanno idinkana xilkaa idinka wareejinno oon hawshaa idinka kor qaadno runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sidii wacnayd ee aad noola soo shaqaysay in xeebaha bari ayaa waxa ay wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay noqonaysaa in xafiiska ugu horreeyay ee deegaankaasi ay ka hirgeliso si rasmi ah shaqaalahuna isla maantaba waxay bilaabeen habka loo cashuuro kalluunka kala duwan ee ka soo degay xeebahaasi waxaana ay isla markaasina kormeer ay ku sameeyeen dhinaca badda iyo weliba kalluumaystada kala duwan ee xeebaha ka howlgasha dadka deegaanka ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda kastamku ay ka furtay